kii ugu badnaa ee liyu booliska ayaa xiray xuduudka Soomaaliland iyo dawlad deegaanka ee Soomaalida Itoobiya magaalada Wajaale oo lagu arkay ciidamo fara badan oo liyu boolis ah madaxweyne Mustafa Cagjar oo qaatay go'aan xasaasi ah kaas oo ciqaab ku marsiinayo Soomaaliland dekeda berbere oo gabi ahaanba albaabada la isugu laabay sidoo kale la joojiyay ganacsiyadii iyo sidoo kale markaasi badeecadihii ay kala soo degi jireen dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa loo wareejiyay dekadaha Boosaaso iyo Garaacad ee Puntland maanta baahid ciidamada gobolka Sool jooga daqsaayay diyaar garow ama laga rabaa waajibku ku dambeeyay la qaadado min walba diyaar garow maanta la safray maayo waqtiga kan waa dhamaatay waqtigii la safray waa dhab Muuse Biixi oo qaatay go'aan laba filaana kaas oo ah inuu xilka ku wareejinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici go'aanka uu qaatay Muuse Biixi Cabdi wax ma ka bedeli doonaa qadiyadii gobolada SSC ay qaateen ee ahaa laaya idoor ee ku sugtaa inay xuduudkooda beeleed ay ku laabtaan horjoogaha maamulka Hargeysa Muuse Biixi Cabdi oo xaaladdu ku xun yahay ayaa is-casilaya waxaana la xaqiijiyay inuu xilka ku wareejin doono madaxweyne ku-xigeenka jabhadda argagixisada ah ee Soomaaliyeedka Cabdiraxmaan Saylici dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxdeeda oo maanta shirka ganacsiga geeska Afrika uga qayb galay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland waxay si cad u cadeeyeen in ganacsigoodii magaalada Berbere ka soo degi jiray ay u soo wareegsanayaan dhanka Puntland gaar ahaan dekadaha Boosaaso iyo Garaacad Soomaaliland oo xaalku ku xun yahay iyo dhaqaalihii ugu badnaa ee ka soo gali jiray dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo xilligan loo wareejiyay dhanka Puntland xilli ay markaasi ku caqan doonaan sida ay qabaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda barnaamijkana ayaan idin kula wadaagi doonaa ciidamada xaq u dirarka SSC oo heegankii ugu dambeeyay ku jira goorma ayaa uu curan doonaa dagaalka ka dhanka jabhadda argagixisada ee SNM ee looga saarayo goobaha yaryar ee ay kaga sugan yihiin gobolka Sool mowduuceena ayaad ku daawan doontaan saraakiisha ciidamada xaq u dirarka SSC oo warbaahinta la hadlay sheegayna inaan la isasii dul saarnaan doonin muuqaalkan kooban ayaan ku soo idin kula wadaagi doonaa xogii ugu dambeeyay xaaladda siyaasadeed ee gobolka Sool balse intaan u gudbin dhamaantiin muuqaalkan si share gareeya lana wadaaga saaxiibadiina dhamaantiin YouTube-kana subscribe saarta gambalaalkana furta kuma haysanidin isku soo laabasho wacan madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ku fashilmay guud ahaanba xaaladihii iyo sidoo kale dhagarihii gobolka Sool uu soo maleegay 15 sanadood maamulkiisa iyo madaxdii ka horeysayba xal walba oo uu isku dayayna markaasi uu noqday mid aan u mareedalin ayaa waxa marakan u qorshaysan inuu qaato tallaabo ummadda Soomaaliland ay muddo dheer ka sugayeen taas oo ah inuu iscasilo oo istiqlaalada miiska saaro Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa la sheegay markaasi in ay arintaasi ku adag tahay waxaana markii ugu dambeysay xogaha laga helay ay cadeynayeen inuu gabi ahaanba markaasi diidanaa balse xoga dambe oo laga helay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxay xaqiijinayaan in Muuse Biixi Cabdi uu qaatay go'aankaasi Muuse Biixi Cabdi oo ku fashilmay siyaasadii gobolka Sool iyo gobolada SSC ayaa waxa markaasi la xaqiijiyay inuu xilka ku wareejinayo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici xilli gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Uud Faysal Cali Waraabe oo fariintaasi shalaysiiyay haddaba Muuse Biixi Cabdi waxaana loo xaqiijiyay in markaasi uu ugu dambeyn go'aansaday inuu xilka ku wareejiyo markaasi Cabdiraxmaan Saylici haddaba go'aanka iscasilaada ah ee uu qaatay Muuse Biixi Cabdi waxba kagama soo naasacdaanayso xaaladii ka taagnayd magaalada Laascaanood shacabka gobolada SSC-na waxay qaateen go'aan ay muddo dheer ku haminayeen kaas oo ah in ay u madax bannaanaadaan markaasi go'aanadooda masiiriga ah odayaasha dhaqanka oo shalay hor fariistay xarunta markaasi ama sidoo kale xisbiga qaramada midoobay odayaasha dhaqanka gobolada SSC oo shalay la hadlay wafuud ka socota dawladda Itoobiya ayaa waxa ay markaasi la wadaageen qoraal yaab leh iyo hadal xasaasi ah oo isla socday hadalkaasi oo ahaa inagu waxaynu nahay beelaha dhulbahante fiqishini iyo madhibaan sidoo kale iyaguna waa beesha Isaaq iyo sidoo kale Godobiirsay Soomaaliland waa qabiilka Godobiirsay iyo Isaaq waliba Godobiirsay kuma qanacsana inaga khaatuma ama SSC ahna waxaanu nahay dhulbahante warsangeli fiqishin iyo sidoo kale madhibaan waxaana xor u nahay taladayada masiiriga ah maamulka Soomaaliland ee qabiilka iyo door nooguma dowladeyn karaan dadka yaga iyo deegaanka yaga beesha caalamka ayaa go'aankaasi hoosta ka xariiqday waana mid keentay in Muuse Biixi laga soo xirxiro iridihii beesha caalamka marka laga soo tago iscasilaada iyo go'aanka xasaasiga ah ee uu xilligan qaadanayo madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi haddana waxaa jirta in madaxda dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka qayb galayay
shirka geeska Afrika ee dhaqaalaha ganacsiga lagu gorfeynayay maalgashiga Puntland oo ka furmay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland in ay si cad u cadeeyeen in hadda wixii ka bilowda ganacsiyadii Berbera kasoo looga soo dukaamaysi tagi jiray ama dekada Berbera lagala soo dagi jiray in loo wareejinayo dhanka Puntland gaar ahaan dekadaha Boosaaso iyo Garowe iyagoo sheegay in masaafo ahaanba ay xataa u dhowdahay dekada Garacad iyo Boosaaso waxaana hadalkan markaasi uu ku soo aadayaa xilli Somaliland ay weerar ku qaaday dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweynaha maamulkaasina uu sheegay inay ka qayb qaateen dagaalkii ka socday magaalada Laascaanood dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo tallaabadaasi ka jawaabaysa ayaa waxa ay si degdeg ah markaasi u xirtay xuduudka Wajaale iyadoo sidoo kalena joojisay ganacsiyadii ay kala soo degi jirtay maamulka Somaliland gaar ahaan dekada Berbera falanqayaasha ayaa qaba inay ku caqan doonaan markaasi Somaliland go'aankan ay qaadatay dowladda deegaanka Soomaalida ee Itoobiya taasi oo loo dhagtaagayay in ay tallaabadaasi ay ku dhaqaaqi doonaan laga kale saraakiisha ciidamada xaq u dirarka SSC oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay in heegankii ugu dambeeyay ay galiyeen ciidamadooda gaarka ah iyo sidoo kale kuwada aadka u tababaran iyaga oo sheegay in 48 saacadood ay soo aadan lagu kala bixi doono taliska Gooja Cadde oo qarka loo saaran yahay maadaama Somaliland looga adkaaday wada hadaladii diblomaasiyadeed iyo nabadda xalka loogu raadinayay taasi oo keentay in ciidamadooda ay ku adkaystaan inay ku signoodaan taliska Gooja Cadde oo goobta ugu dambeysay ee Somaliland xilligan ay kaga sugan tahay gobolka Sool